Amal Diamond waa mid ka mid ah gabdhaha ugu caansan baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka oo ay aad u wada garanayaan dhalinyarada isticmaasha barta internetka. Amal Diamond waxaa si weyn loogu garanog yahay muujinta muuqaallo qoobka ciyaar ah oo ka fog anshaxa iyo qaadashada dhar aan ku habboonayn gabar ahaan. micnaheedu ma ahan inaan si toos u bartilmaameedsanaya gabadhan, waxaase ujeedadu tahay inaan ugu horreyn u sharaxo kuwa aan garanaynin waxa ay tahay gabadhan. Amal Diamond waxay barteeda Instagram-ka ku leedahay in ka badan 200,000 oo taageerayaal ah, waxaana inta badan soo gelisaa iyadoo qoobka ciyaar sameynaysa oo xiran dhan aan caadi ahayn. inta badan saameynteeda dhanka internetka waxay gaartay inay dagaal internetka kula gasho YouTubero iyo fanaaniin caan ah kuwaasi oo ay is-afgaareen. markii horreysay waxaa baraha bulshada aad ugu faafay muuqaal gabadhan oo sawir la gashay fanaanka reer Tanzania ee Diamond, waxaana lagu eedeeyay gabadhan Soomaalida ah inay ku ooysay wajiga hore ee fanaankan ay taageerada u tahay xilli ay sawir la galaysay. أدنى يا سبة هرمران قرن yeelkeeda mar kale isbuucan ayay baraha bulshada ruuxday kadib sawir uu bartiisa Facebook soo geliyay YouTuber-ka caanka ah Shiine Culay oo ay la sawiran yihiin Najuu Caraalo oo YouTuberada iyo gabadha la yiraahdo Amal Diamond oo ay warbixintan ku socoto. sawirkan ayaana keenay in la dhaleeceeyo dhagaha ay xaraga ahaan u soo xiratay Amal Diamond. waxay sawirka ka soo muuqatay Amal iyadoo wadata dhaga ay dadka qaar u qaateen astaanta diinta Masiixiga ama Kirishtanka, waxaana isla markii dadka qaar ay iska dhaadhiciyeen in gabadhan ay diinta Masiixiga qaadatay. balse muuqaal uu saacado kadib soo geliyay bartiisa YouTube-ka ayuu ku sharaxay Shiine Culay in waxyaabaha dadka iska dhaadhiciyeen ay yihiin been abuur, isla markaana Amal dhagaha ay wadatay aysan ahayn calaamad diin ka turjumaysa haddii dadka qalad ay ka fahmeen la saxay. hadda halkan waxaan rabnaa inaan ku samayno sicitaan degdeg ah waxaa dhinacayga fadhiya walaashay boqorad Amal Diamond iyo ogaasad gabar caan baxday Najuu Caraale. sidaa aragteen galabta waxaan Facebook-ga soo dhigay sawir saddexdayada ah. sawirkaa waxaa laga arkay dhegta walaashay Amal Diamond oo ah afar gees. runtii dhegtaasi dheg siman bay ahayd, laakiin dad baa si khaldan u turjuntay oo waxay u qaateen calaamado diimo kale. arrintaa waa beeninaynaa. walaashayo waa qof diin ku dhalatay, diin shariifa oo muslim ah haysata, iimaankeeduna sugan yahay. markiiba iyadaa waxay bilowday inay dhegtii jajabiso, cara ay ka qaaday. waa u jeedaan dhegteedii hadda saasay u siman tahay, waa dhegtii oo la jajabiyey weeye. marka maanta dhan gabadha waa wada joognay. khaladkaa aad fahanteen annagu ma fahmin, waxaa idiin muuqday annaga markaa nooma muuqan. markii aad soo dhigteen khalad haddaa u fahanteen waxaan leenahay sidaa wax u fahanteen waxuma jiraan. haddana waa laga daba tegay dhegtii wataa Amal. hadalka Shiine kadib waxaa Amal ay ka hadashay in diinta Islaamka ay ka baxday iyo in kale iyadoo tiri waan islaamaya Soomaaliya laakiin waxaan ii sheegayaa anu muslim baan ku dhashay waalidkii camal soo adeegay diinteedii ugu fiicneed baan haystaa. weligayna isma dhahayo diintaada ka bax, weligayna isma aamiin. marka inta yarta khaladka u fahanteena waa taas oo laga shaki saaray. waa la jajabiyey, walaasho waa jajabisay, waa jajabisay. waa ilaahay maya khaladba ma ahayn be iyaga khalad fahmay. dhegtuna waxay ahayd dheg siman bay ahayd. tan kale calaamadii la mooday waxay caan ku tahay inay kala dheer tahay, laakiin dhegtan dheg siman bay ahayd. gabadhu maanta dhan waa nala joogtay boqoradu, wax ceeba oo aanagu ku aragno ma jirin. idinkana haddii tuuni isku soo wada duub oo sheekadan ayaa ahayd mid la xiriirta Amal Diamond iyo sawirkay la gashay Shiine Culay iyo Najuu Caraale oo noqday mid saameyn weyn yeeshay oo aad loo hadalhayay, keenayna in mar kale qaladkoodii ay saxaan shakhsiyaadkii sawirka soo galay. adiga sidee ayaad u aragtaa sawirka kuu muuqda? aniguse waxaan dhihi lahaa waaba ay wanaagsan tahay haddii ay qaladkeeda saxday isla markaana ay iska dhigtay dhegihii ahaa ama u ekaa diinta Masiixiga. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafino. يا أدنى يا سبة